halkani waa warbaahinta Soomaaliya waxaa si toos ah u daawanaysaa barnaamijka Faalada Toddobaadka annagoo ugu hadli doono waxyaabihii ka dhacay Soomaaliya kuwoodii ugu muhiimsanaa qodobada barnaamijka maxaa la gudboon Soomaaliya kadib helitaanka kiiska caabuqa ee coronavirus ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo la wareegay gacan ku haynta Janaale maxay kaga dhigan tahay Al-Shabaab maxaa ka soo baxay shirkii wada tashiga ee Puntland taliyihii diiday ballanqaadka farmaajo la dalacsiiyay safarka kheyre Itoobiya iyo sirta ku duugan iyo qaraxyo xalay ka dhacay Muqdisho iyo qasaarahooda waxaan ka codsanayaa intaan gudaha galay faahfaahinta warka haddaad ku cusub tahay kanaalka ku soo biiro subscribe dheh sidoo kale inoo muuji calaamadda keelitaanka ee like si aan ugu faraxno hore ugu socdo waad mahadsantahay haddii aan ku bilaabo qodobka koowaad ayadoo jirto habacsanaan iyo ka gaabis dhanka dowladda ah ayaa hadda waxay wasaaraddu caafimaadku sheegtay in hal qof laga helay caabuqa haddaba maxaa la gudboon dowladda federaalka Soomaaliya in hadda laga gaaro dabaqabashada wixii ay horay uga gaabisay inay xakamayso xuduudaha gaar ahaan dhanka bariga inay diyaariso goobo iyo dhaqaatiir caafimaad laga faa'iideysto dhalinta waxbarata ee dalka heer dowlad goboleed iyo heer federaalba inay dowladdu samayso telefoon si uu ula soo xiriiro qofkii wax iska dareema shacabka Soomaaliyeed waa inay fiijignaadaan raacaan habraaca iyo wacgelinta cudurka ayna joojiyaan isku imaatinka iyo kulamada wixii macquul ah Allah naga badbaadiyo annaga iyo inta muslimka ah qodobka labaad dib u xoreynta Janaale ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ka anbabaxay degmada Owdhiigle 16 bishan ayaa dib ula wareegay gacan ku haysta magaalada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose taasoo fariisan u ahayd xarakada Al-Shabaab tan iyo 2015 kadib markii ay dib uga wareegeen ciidanka AMISOM Janaale ayaa Al-Shabaab u ahayd xarun ay ku abaabulaan howlgallada iyo qaraxyada ay ka fuliyaan gudaha dalka Soomaaliya taasoo ku noqonaysa dhabarjab aad u weyn keeni kartana inay weerar dib u soo abaabulaan sidii hore u dhacdaba qodobka saddexaad shirkii wada tashiga Puntland kadib shir 3 maalin uga socday Garowe ee maamulka Puntland ugana hadlayeen ayahooda iyo qoonsi ay qoonsadeen dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka soo baxay arrimahan in arrimaha dastuurka dib loo dhigo dowladda soo socota ee 2020-2021 in doorasho qof iyo cod aanan dhici karin sanadkan lana aqbali karin waqti kordhin ku yimaada hay'adaha dastuuriga ee dowladda federaalka in Puntland ay qaadacayso natiijada haddii aanay qayb ka noqon wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland in dhammaan saamayso siyaasadda isu yimaadaan oo laga tashto doorashada 2020-2021 Puntland ay kaalin ka qaadato Senator Axmed Macalin Cabdullaahi Naadir ayaa dhaliilo u soo jeediyay dowladda Puntland sheegayna in go'aamadan aysan midna wax u tarin dowladda federaalka iyo tan Puntlandba senatorka ayaa ku tilmaamay dani inuu yahay mid hortaagan horumarka Puntland rabana inuu diido sharciga labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynuhu ay soo saxiixeen qodobka afaraad askarigii diiday dalabka dowladda madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maalintii Isniinta taliyaha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee degmada Afmadow Gaashaanle Mahad Islaam u dalacsiiyay darajada Gaashaanle dhexe madaxweynaha oo kulan gaar ah la qaatay saraakiisha ciidamada daraawiishta ee ku sugan degmada Afmadow ayaa uga mahadceliyay shaqada adag ee u hayaan shacabka iyo nabadgelyada ay deegaanka ku soo dabaaleen si gaar ah madaxweynuhu wuxuu u amaanay Gaashaanle dhexe Maxamed Islaam wadiniyada iyo daljaceelka u muujiyay isagoo diiday shirqoolka afgambiga la doonayay in lagu manjaxabiyo nabadgelyada degmada Afmadow taasoo dowladda federaalka ay la damacsaneyd barakaca shacabka iyo qulqulatooyinka ka jira meelo badan oo dalka ka mid ah qodobka shanaad ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa safar aan la filayn uga anbabaxay dalka Itoobiya safarkiisa ayaa dowladdu ku tilmaamtay inuu sii xoojinayo xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in safarka ra'iisul wasaaraha uu daba socdo arrinta khilaafka Masar iyo Itoobiya waxaa jira arrin Itoobiya ay ka careysiisay oo ahayd in Soomaaliya ay la safatay Masar shirkii jaamacadda Carabta xukuumadda Farmaajo ayaa cadaadis ka dareemaysa Itoobiya baahi badan oo qabta taageeradeeda ayaa ka laabatay go'aankii ay ku taageeraysay Masar sheegtayna inay ka gaabsatay arrintaasi ra'iisul wasaaraha ayaa u tagay si uu u muujiyo Itoobiya inay garab taagan yihiin qodobka lixaad qaraxyo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho xalay xilligii dambe ayaa laga maqlay magaalada Muqdisho jugbambooyin ah
kuwaasoo lala egtay 4 ka mid ah kaamirooyinka hay-adaha ammaanka ay ku xireen isgoysyada iyo waddooyinka caasimadda Muqdisho. 4 kaamiro ee qaraxyada lagu burburiyey waxay ku kala xirnaayeen degmooyinka kala ah Xamarweyne, Waaberi, Hodan iyo Holwadaag. dhawaan ayay ahayd markii sidan oo kale qaraxyo haween lagu xiray baalooyinka ay kaamirooyinka amniga ku xirnaayeen oo ku yaala wadada Maka al-Mukarrama, sidaas oo kale qaraxyo lagu burburiyey. waxaa halkaasi noogu eg barnaamijkeennii toddobaadlaha ah ee Faalada Toddobaadka ee warbaahinta Soomaaliya. haddaad ku cusub tahay kanaalka, ku soo biiro subscribe dheh, sidoo kale fiidiyoga like saar haddii aad ka heshay si ay noogu noqoto dhiirigelin.